السلام عليكم soo dhawaada asxaabay maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay dalka Iran sidoo ku shiicoobay nala daawo barnaamijka dhameystiran dalka Iran waagii hore waxa loo yaqaanay Faris waxayna ahayd dawlad awood ku leh caalamka xilligii saxaabada gaar ahaan Abu Bakar iyo Umar ayaa la furtay dalka Faris dadkii deganaa wadankaas waxay qaateen diinta Islaamka Iran waxay haysatay madhabka Sunniyiinta waxaana ka soo jeeda culimada ugu waaweyn diinta Islaamka sida Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Imam Abu Daawud, Imam Dabari Sibawayh iyo qaar kale oo badan haddaba waxay isweydiin mudan dalka Iran oo Sunniyiin ah ayna ka soo jeedaan culimadaas waaweyn ee kor ku soo xusnay sidee ku shiicoobay qarnigii 9aad ee Hijriyada waxa dalka Iran deganaa laba qabiil oo Turkiya oo ahaa Muslimiin Sunniyiin waana qabiilka Qaraqoonyala idaha madow iyo Aqoonyala idaha cadcad waxaana dalka Iran xilliga ka jirtay qalalaasa siyaasadeed kadib markii ay burburtay dawladii Taymuriyiinta ee uu hogaaminayay Taymurlink dalka Iran gaar ahaan magaalada Ardabil waxa deganaa wadaad Suufiye oo Sunniye wuxuuna wadaadkaas xeer badan oo cilmiga ka qaadatay waxa wadaadkaas loo oran jiray Safiyuddin al-Ardabili wadaadkan waa ugu shanaad ee boqorka aastay dawladii Safawiinta ee loo oran jiray Shah Ismaaciil wadaadkii markii uu dhintay waxa xirtiisii ugu dambeeyay wiilkiisa loo dhahay Sadruddin Muuse isaguna dariiqii aabihi ayuu raacay markuu dhintayna waxa xirtii madax u noqday wiilkiisa oo la yiraahdo Sadruddin Khawaja Ali Sayahbosh ninkan markuu xilka wadaadnimo qabtay wuxuu qaatay madhabka Shiicada Raafidada sidoo kale xirtiisuna way shiicoobay markuu dhintay Sayahbosh waxa ugu dambeeyay xilkii wadaadnimo wiilkiisa Sultan Janiib oo isaguna weerar ku qaaday hogaamiye Sharwan kadibna dagaalka ayaa lagu dilay dabadeedna madaxtinimadii waxa ku soo wareegtay wiilkiisa Haydar oo isaguna isku dayay inuu argudo aabihii balse waa uu ku fashilmay waana la dilay xilkii wuxuu ku wareegay wiilkii Sultan Haydar oo la dhaho Shah Ismaaciil bin Haydar as-Safawi waana aasaasaha rasmiga ee dawladda Safawiyiinta Shah Ismaaciil wuxuu weerar ku qaaday xaakimkii Sharwan waanu jabiyay wuxuuna ahaa nin ku ba'an dagaalada oo si fool xun leyn jiray una xasuuqi jiray muslimiinta Sunniyiinta dagaalkaas oo aabihii uga arguday wuxuu ka helay laba faa'iido waaweyn sumcad weyn iyo isagoo kasbaday Shiicadii deganay dalka Iran oo xilliga ahaa dad laga tiro badan yahay hubkii iyo saanadii uu qaniimaystay waxa uu qaybiyay ciidankiisa dabcan waxa baraarujin mudan xilligaas dalka Iran Sunniyiinta degan waxay ahaayeen 4 meelood oo 3 meel ama wax ku dhow 80% Shah Ismaaciil wuxuu dagaal ku qaaday qabiilkii Aqoonyalo ee Sunniyiinta wuxuuna ka qabsaday magaalada Tabriz kadibna wuxuu xasuuqay muslimiintii Sunniyiinta ee magaalada deganaa habar qabahan Shah Ismaaciil wuxuu magaalada Tabriz oo kaliya ku dilay 20,000 oo qof oo muslimiin Sunniyiin ah wuxuuna dadka ku soo rogay inay qasab ku shiicoobaan dagaalkaas markuu ka soo baxay waxa loo caleema saaray inuu yahay boqorka dalka Iran dabadeedna wuxuu weerar ku qaaday magaalada Baghdad isagoo xoog ku qabsaday laayayna Sunniyiintii deganeen magaalada Baghdad faldanbiyeedii uu galay Shah Ismaaciil waxa kamid ah inuu soo faagay xabaaliyo culimada Islaamka sida Xabaashi Abu Xaniifa Ilaahay ka raali noqday isagoo Xabaashi ku aasay ay midow waxa kale oo Xabaashi ka dhigtay musqul sidoo kale wuxuu dabagalay durridii Khalid bin Walid isagoo meesha ku arkaba ku dilay sababtana ay tahay maxaad uga abtirsataan Khalid bin Walid habar qabaha si Shah Ismaaciil si dalka Iran iyo qaybo kamid ah Ciraaq u shiicaysiiyay wuxuu dilay dad ka badan 1 milyan oo Sunniyiin ah waxayna arrintaas ku tusaysaa cadaawada iyo qodada Shiicadu u qabto muslimiinta Sunniyiinta xilligaas Shah Ismaaciil faldanbiyeedkaas geystay waxa adduunka ka talinayay dawladii Cusmaaniyada oo ku mashquulsanayd furashooyinkoodii qaaradda Yurub dawladii Cusmaaniyada oo furatay magaalada Istanbul ee caasimadda dawladii Roomaanka sidoo kalena furatay dalalka Hungary, Bulgaria, Ruushka, Greeka iyo Talyaaniga dawladii Cusmaaniyada waxa qasab ku noqotay inay joojiso furashooyinkoodii si ay uga hortagto dawladda Shiicada ee dadkii muslimiinta ah qasab ku shiicaysay dabcan waxa dhacay dagaalo badan oo dhex maray Cusmaaniyada iyo Safawiyiinta sida dagaalkii lagu jabiyay Safawiyiinta ee sanadkii 1524 ee dawladda Cusmaaniyada ay qabsatay magaalada Tabriz dawladda Safawiyiintu waxay garab siiyeen dawladii Boortaqiiska oo xilligaas sahan u ahayd gumeystay reer Yurub habar qabayaasha Safawiyiintu wada shaqayn dhow la yeesheen Boortaqiiska sidoo loo qilaha dawladda Cusmaaniyada haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa sababay in dadka reer Iran ay shiicoobaan habar qabiya asaasay dawladii Safawiyiinta wuxuu ka faa'iideystay qalalaasaha siyaasadeed xilligaas Iran ay ku jirtay iyo fawdadii ka dhex dhalatay dagaal qabiileedkii ka dhex haloosnaa Sunniyiinta Shah Ismaaciil wuxuu soo wareegay wadaadda Shiica oo faafiyay madhabka Shiicada kuwaas oo ka soo kaxeeyay gobolka Lubnaan habar qaba Shah Ismaaciil wuxuu adeegsaday xoog iyo awood isagoo madaxa goynayay qof kasta oo diiday inuu shiicoobo qowmiyadda Iiraannimada ama Faarisnimada oo buunbuuniyay isagoo dadka nacsiiyay Carabta Turkida iyo Usbekiska Sunniyiinta fadlan fiidiyowga dadka like saar oo nagu soo biiro. Assalaamu calaykum.